xukuumadda jamhuuriyadda iskada ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay sidaysay laba wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. wasiiradan ayaa waxaa talaadadii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. dhanka kale waxay xukuumadda jamhuuriyadda iskada ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ay Itoobiya ku wareejisay gaadiid loola soo baxsaday Soomaaliland dhawaan markii ay rabshadaha ka dhaceen magaalada Jigjiga. faafahinta warkaasi waxaa goor Hargeysa inooga soo diray wariyaha BBC-da Axmed Saciid. وزيرك وزارة الرماء جودها سوماليلاند محمد كاهن أحمد أيا هدا BBC دا وشري إن حريته دي لو سعلي وزيرك هوريه وحبرشة الدولة دجان كسومالي دا إثيوبيا إبراهيم آدن مهد الله يقاني إبراهيم سعد وزيرك هوريه عدالة الدولة دجان كسومالي دا إثيوبيا عبد الجمال أحمد قلومبي أو مالتي سلاسلي كوبي الله باتك أبوس عيدا كأمانكو أي كسو حدين إيجو كدوفعي دقيقة ديورتها عقال مقالة هرقيسة ونسعد نيروبي. محمد كاين أحمد وزير وزارة الرماها قدوه وحا وسيكوبا يقوشي التليفون كقور رويتو إلا بدا وزير هوريها روح ليلوها يسي إنا أي كوبا فين شرعيقا أو إيغو أو آن وضن في شام ستركو قالها أي سوق لسومالي لان كانوا فيين فافاين كلام مقحين وزيركو إيوا وقاقا صدي dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxa uu xaqiijiyay in maanta magaalada Togwajale ee ku taala xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku wareejisay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya 14 baabuur oo intii magaalada Jigjiga qalalaasuhu ay ka socdeen bishan horaanteedii laga soo biliqaystay oo loola soo galay dhinaca Soomaaliland oo ciidamada ammaanku ay ku qabteen magaalooyinka Togwajale, Gabiley, Boorama iyo Burco. baabuurtaasi oo waaweyn iyo yaryar isugu jira waxaa Soomaaliland sheegtay in ay ku jireen baabuur ay leedahay madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaa baabuurtan uu ku wareejiyay mas'uuliyiinta Itoobiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye oo ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Togwajale goordhaweyto iyadoo labada wakiil ee labada xukuumadood u kala fadhiya magaalooyinka Hargeysa iyo Addis Ababa ay goob joogayeen. Axmed Saciid BBC Hargeysa.